hormuud cable tv waa hilka shacabka. xisbiga wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta dhexe xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay 80 milyan oo deyn ahana xukuumadii hore uga tagtay xukuumadda haatan talada haysa. afayeenka xisbiga wadani Barkhad Jaamac Batuun ayaana warbaahintaas uu sheegay waxaana hadaladiisi kamid ahaa waxa isla bisha February 5 baarlamaanka Soomaaliland ka hadlay xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba waxa dhinaciisa taagnaa xildhibaanka wasiirka wasaaradda maaliyadda Saad Ali Sharax. xildhibaanku wuxuu sheegay kulmiyahan hadda jooga in kulmiyii hore uu ku wareejiyay deyn gaaraysa 80 milyan. wasiirku markuu ag taagnaa xildhibaanka uu ku raaxaysanay hadalka xildhibaanku waxa uu kale u sheegay in gudidooda wasiirku la kulmay xogtana wasiirku uu sheegay qofka bilaadanka hadduu ka been abuuranayo markuu barbarkaaga taagan yahay baa la iska qabtaa walaal waa beenayga jooji. isla shalay tole saxaafadiina sharafta laba u yaray ninka wasiirkii wuxuu ku hadlaynaa de ummadda Soomaaliland oo dhan baa ka yakhyakhsootay. runtii ninka wasiirkii kama xushoonin mas'uuliyadda ummadda u hayo, kama xushoonin aakhiradiisa iyo ilaahiisa la kulankiisa, kama xushoonin taariikhdiisa boga ay ku qormi doonto ma mid madooba mise waa mid cad, kama xushoonin maatida laga dayrinayo ee gaajada iyo darayada iyo diifta iyo diihaalka u dhimanaysa ee mas'uulka uu ka yahay. anu ma garan karayo waxaan ku sifayn karayo damiirku qofka hogaamiyihii markuu nooca noqdo shacabka Soomaaliland ba ka jawaabi doona. anagu xisbi ahaan waxaanu aaminsanahay kulmiyaan hadda joogiyo kulmiyii ka horeeyba 80 milyan ee shacabka maatida ay lahaayeen inay gacantooda ku maqantay. waana kii hadraawi lahaa min dabliq rashiidow dhuxul budaa xoolaha maatida laga qaataana wuxuun bay ku dhamaataa duyurad iyo daawo.